muxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ugu socday faraha lugihiisa markii la duugayay qaadimkiisii taclaba qiso ka ooyin doonto qof kasta ay dhageysta ee haddii aad ku faraxsantahay ka sheekeynta qisooyinkii macmacaana iyo siiradii quruxda badneed nabigeena calayhi salaatu wasalaam muuqaalka laag saar siina faafi si u gaaraan muslimiin fara badan kumentii ku qorsalig nabiga inta ku qoray adigana waxa ku socdo ajri dambi dhaaf taclaba allah ka raali noqdee waxa uu ahaa qaadimkii nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa u diray arrin wuxuuna soo agmaray guri ansaari ah wuxuu arkay naag qubaysanaysa aad ayuuna u fiiriyey kadib wuu cabsaday wuxuuna ka baqay inuu waxay ku soo dego rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo loo sheego wixii uu sameeyey wuxuu galay buuro ku yaal maka iyo madiina wuxuuna ku nagaaday muddo dhan 40 maalin jibriil ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ku soo degay waxa uuna yiri rabbigaaga ayaa ku salaamaya wuxuuna ku leeyahay nin ummadaada ka mid ah ayaa ku jiro god ku yaala buur dhexdeeda aniga ayuuna magan galay nabiga waxa uu yiri sayid cumar bin khadaab iyo salmaan al-farisi baxa oo ii keena taclaba markay soo laabteen iyagoo wada ayay ku yiraahdeen waa kan rasuulkii allah waxa uu yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaad ku maqnay taclabow waxa uu yiri dambigayga rasuulkii allah ma ku tusaa aayad dambigaaga oo dhan ka tiraysa waxa uu yiri haa rasuulkii allah حبيبك عليه الصلاة والسلام وحويري آخر آياتان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحويري ثعلبة دنبقي يا كوين رسولك عليه الصلاة والسلام وحويري ميا كلامك يا كوين كدبنا إنه قريس إسكادو أياه وكو أمري سديد مالين ثعلبة لما أرك رسولك صلى الله عليه وسلم وحويري إن كان نطقني ثعلبة ثعلبة markay u yimaadeen ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam dhabtiisa saaray madaxii thaclaba madaxiisii ayuu kor u qaaday nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri maxaad madaxa uga qaaday dhabteeda thaclaba waxa uu ku jawaabay dambi ayaa iga buuxo rasuulku waxa uu yiri maxaad ka sheeganaysaa waxa uu yiri sida inay quraansho ku soconayso inta u dhaxaysa lafahayga hilibkayga iyo maqaarkayga ayaan ka cabanayaa waxa uu yiri xabiibka calayhi salaatu wasalaam maxaad tabanaysaa ثعلبة وحاو يري دم داف كربيجي أيان تبانيا وأن دونيا كدب جبريل أيا سودي وكيري نبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم ربيجي أيا كسلام يا وحاولنا كلية هدي الدون كيجا وإلي ماذا إن لا دولك ودم بياه وحنو لا إيمانا يا إن لا ودم بدافع إن لا دولك ودم بدافع نبي صلى الله عليه وسلم أيان أرنت أشجعي ثعلبة كدبنا آدا يوغلي ثعلبة qayladaas darteed ayuuna u dhintay kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu amray in la dhaqo oo la karfano markii lagu dukaday oo duugtii la dhameeyay ay saxaabadu dhaheen rasuulkii allah waxaan ku aragnay adigoo faraha lugahaaga ku socdo ee maxaa dhacay waxa uu yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay xaq igu soo saaray ayaan ku dhaartay waan awoodi waayay inaan lugahayga dhulka wada dhigo siday u badnaayeen malaa'igtii ka soo qayb gashay janaasada taclaba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هدي أذن أهين حاسد هدي أذن أهين مد أن جعلين النبي صلى الله عليه وسلم وآتاي مد جعل حبيبك عليه الصلاة والسلام وقال كان لايك صار سي أفاف تغسدن شرقري كومنتيغا وغتك وكوغر سلق النبي انتو كوغر يحكوش أدقان أجريو دم بداف bishaaradani waxay ku socotaa dhammaan qurba joogta Soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka in markiiska macmuur online uu qaadanayo arday cusub waalid mala ay ubadkaaga oo ku nool dhul qurba cid ku tarbiyadaysa ana ku haye hamoogaanin markiiska macmuur online haddaba markiiskan culumta lagu barto waxa kamid ah xifdinta quraanka kariimka barashada luqadda carabiga تجويد سيرتي النبي نصوبا حريص ينبت قليو كرقيسا هاتي أذكار إيو تربية أمتكا هذا بابرشوي هموغان مركز كمعمور أونلاين وكاها قبتيرا يدمان باهيها وحبرشوي وبتكاغا هذا با وحي فافاهني تاسي ديرنا كلا حديد نمبر هذا شاشدكاغا مغضا